wasiirka cusub Cabdilaahi annagu waxaanu isku nahay iskoolotna waanu hayn iskuulka ehel iyo asxaabna waanu nahay dad isminka isbaranayana ma nihin waana garanayaa aqoontiisa maaliyadeed wasaaraddu waxay la leedahay xiriir joogto ah oo ugu weyn hantideeda cashuur bixiyaasha markaan leeyahay waxa weeye dhammaan bulshada oo dhan Somaliland dariska iyo ajnabiga ku nool waayo qof kasta oo wadankan ku nooli waa cashuur bixiye si dadban iyo si toos munaasabadda maanta aynu isugu nimid dhammaan waa garanaysaan waa munaasabad xil wareejineed oo ay kala wareegayaan madaxdii hore iyo madaxda hadda ee cusub wasaaradda maaliyaddu sidaa ka war haysaan waa halbowlaha qaranka la'aanteedna wax ma socdaan ama waxay ka dhigan tahay wadnaha dhiigga bamgareeyo oo kale haddii aanay wasaaradda maaliyaddu quudinaynin xubnaha ama hay-adaha kale dowladda qaranku ma shaqaynayo hawl muhiimay qaranka ugu fadhidaa waxay ka mid ahayd wasaaradda maaliyaddu foolaadkii wasaaradihii abuurmay sanadkii 1990kii muddada waxay iska bedelay 17 wasiir oo ugu dambeeyay Dr. Saad 17ka wasiir mid waliba wuxuu kaga tagay raad wasaaradda mid walbana duruuftiisu lahaa muddada dheer haddaan tusaale soo qaadano wasiirkii ugu horeeyay oo ahaa Ismaaciil Hurre Buuba wuxuu ahaa wasiirkii sameeyay naqshadda lacagta iyo baasaboorka aynu maanta isticmaalo wasiirkii ku xigay wuxuu ahaa Cabdilaahi Maxamed Ducaale wuxuu ahaa wasiirkii bilaabay cashuur ururinta oo ku koobnayd markaa dekada oo kaliya sidaas ay u soo socotay maantana halkay marayso waynu wada ognahay wasaaradda maaliyadda korriinka ay samaysay iyo halka ay marayso waynu ka wada dheregsanahay wasaaradda maaliyadda waxaa jooga ama ka hawlgala shaqaale tababaran oo tiradoodu ilaa 1500 ku dhowdahay 2500 oo aqoon ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo karti ahaanba dhisan oo adeega intaa leeg wadanka u haya habeen iyo maalin shaqeeya dabeecadda wasaaraddu ku shaqeysaa waxa weeyaan sida ciidamada oo kale ciidamada 24 saac way shaqeeyaan wasaaradda caafimaadka iyo warfaafintuna waa la mid saasoo kale wasaaradda maaliyaddu waxay ku sugan tahay dhammaan xuduudaha dalka badda iyo cirka iyo dhulkaba shaqaalaheedu waxay shaqeeyaan habeen iyo maalin markasta oo loo baahdo shaqada ay hayaan ee culus awgeed waa shaqaale heegana shaqaalahaas waa shaqaale kartidooda iyo aqoontooda iyo anshaxooda halkaa maanta qaranka ku ilaaliya intaad ogtihiin duruufo badan baa soo maray dalka muddadii uu joogay gaar ahaan Dr. Saad waxaa ka mid ahaa xanuunkii aafada ahaa ee COVID-19 waxaa ka mid ahaa dagaaladii ka dhacay qaybo ka mid ah dalka iyadoo duruufahaas oo dhan saameynayeen haddana wasaaradda maaliyaddu waxay ku dadaashay in aanay isdhimin miisaaniyadda dowladdu iyo kharashkii dowladdu ku shaqayn lahayd taana waxaa mahaddeeda lahaa wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka xilka wareejinaya iyo shaqaalihii kartida badnaa ee shaqadaas oo qabta aad baan ugu mahadsan yihiin waxaa kaloo iyadana xusid mudan oo odayga labaad ee wasaaradda ah xisaabiyaha guud Axmed Daawud Geedi oo ah xubin aad iyo aad u muhiim ah oo wasaaradda ka tirsan waaya araga haddii isagoo aanu joogi lahayn beeqaaminta iyo controlka iyo guntigiijiska dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda wax fara badan baa inaga xumaan lahaa isagana aad baan ugu mahadnaqaynaa hawsha fara badan oo hayo ilaa iminkana hayo insha allahna uu sii hayn doono wasaaradda maaliyaddu waa wasaaradda aan soo tilmaanay Dr. Saad waxa weeyaan wasiirkii 17aad ee wasaaradda dhinaca kale waxa weeyaan wasiir marka laga reebo Awil Cali Ducaale oo wasiirkii ugu muddada dheer ay wasaaradda ka soo shaqeeya ilaa 2019kii wasaaradda soo hogaaminayay Saad waxa lagu xusuusan doonaa uu ka tagi doonaa maanta dhaxal maguurana oo ay ka mid tahay salbalaarinta cashuurta
kobcinta miisaaniyadda iyo kobcinta dhaqaalaha waddanka guud ahaan oo uu hawl weyn geliyey. Saacad waxaa lagu xusan doonaa insha Allah dulqaadkiisa, sabirkiisa, xanaanada shaqaalaha iyo cashuur bixiyayaasha iyo waxyaalo badan oo muhiim ah oo saacad u soo dhabar adeegay. Waxaa lagu xusan doonaa soo jiidashadii maalgeliyayaasha oo DB World iyo kow ka tahay banka adduunka iyo meelaha kale la midka saacad hawlo fara badan oo lagu xusan doono. Waxaanay u baahan tahay in halkaa laga sii wado dhaxalka uu ka tegay Dr. Saacad ee wareejinayo iyadoo shaqaalihii iyo intii la shaqeynaysay diyaar yihiin in mas'uuliyiinta cusub ee wasaaradda qabanaysaana halkii ka sii anba qaado oo wax ku sii biiriyaan oo maanta maalinteeda iyaguna ka tagaan dhaxal muuqda insha Allah. waana ugu ducaynaynaa in Ilaahay u fududeeyo hawsha inay halkaa ka sii wadaan. wasaaraddu waxay la leedahay xiriir joogto ah oo ugu weyn hantideeda cashuur bixiyayaasha markaan leeyahay waxa weeye dhammaan bulshada oo dhan Somalilandriska iyo ajnabiga ku nool waddanka. qof kasta oo waddankan ku nooli waa cashuur bixiye si dadban iyo si toos maaha ganacsiga kaliya cashuur bixiyo. qof kasta wax uu iibsadaa wax uu cunaa cashuurta si dadban buu bixiyaa. marka hantida ugu weyn ee wasaaraddu leedahay waxa weeyaan waa cashuur bixiyayaasha. waxa kale oo wasaaraddu wada shaqayn joogto ah oo dhow la leedahay banka dhexe ee Somaliland, wasaaradda ganacsiga, hanti dhowrka, hay'adda DB World, deeq bixiyayaasha kale iyo maalgashadayaasha ay ka mid yihiin Admora shirkadda la yiraahdo iyo DB World. waxay xiriir shaqo joogto ah oo dhow la leedahay hay'ado fara badan oo kala duwan. wasaaraddu waxay soo gaadhay oo ay maraysaa maanta meel lagu faani karo oo systemkeedii oo dhami uu ku shaqeynayo systemka iswada waddanka oo dhan ay ku faafisay hay'adaha dawladda oo dhan iyo dawladaha hoose ee magaalooyinka waaweyn. intaasoo dhan ay maanta ku shaqeeyaan. taas waxay xakamaysay waxyaalihii lagu xaman jiray wasaaradda maaliyadda ka mid ahayd wax isdhaafin iyo musuq iyo wixii lamid ah. waayo wax oo dhan waxay ku jiraan systemka computerka haday taariifad noqoto iyo haday noqoto cashuur iyo arrin kastaba. waa wax bayaala oo qof kasta arki karo oo aan waxba la isweydaarin karin. marka wasaaraddu waana sii fadinaysaa hawlaha ay qabatay automationka oo aan wax ahayn meel taagan ee maalin walba wax development ku jira iyo horumarin ah. intaa markaan ka imaado wasiirka cusub iyo wasiiru dawlaha waxaan ku soo dhaweynayaa anigoo ku hadlaya afkii shaqaalaha wasaaradda iyo xisaabaadka guud marka laga bilaabo nadiifisada ilaa agaasinka guud iyo xisaabiyaha guud inaanu si hagar la'aan oo hufan sida awal baan ku shaqeynayna wala shaqeyn doono muddada aanu joogno. waxyaalaha soo sheegay bay mas'uuliyiinta cusub dhaxlaysaa. wax cabsina kuma jirto oo ma filayo wax dhibaato ka hor imanaya inay imanayso maadaama ay u yimaadeen wasaarad dhisan oo horumarsan oo ka horeysa marka la barbar dhigo wasaaradaha kale iyo hay'adaha kale dawladda. wayna sii badan yihiin. waxay la kulmeen meel shaqeynaysa. waxaana rajaynaynaa inay halkaa ka sii anba qaadaan oo wixii ka dhiman iyo wixii hogaaminta siyaasadeeda ay ku soo biiriyaan. waana ugu ducaynaynaa Ilaahay idankii. ballanqaadka iyagu waa kaas inaanu intii tamartayada iyo aqoontayada iyo kartidayada ku garab galno sidii ay u gudan lahaayeen xilka iyo waajibaadka la saaray mas'uuliyiinta cusub. waanan hubaa inay ka gungaarayaan wasiirka cusub Cabdilaahi. annagu waxaanu isku nahay iskoolotna waanu nahay iskuulka ehel iyo asxaabna waanu nahay dad isminka isbaranayaan ma nihin. waana garanayaa aqoontiisa maaliyadeed. dhinaca kale baankana waxa uu jooga Cabdilaahi wuxuu ka tirsanaa banka dhexe cali oo isaguna baankana uu nasiib badan yahay banka dhexena in ay heleen wasiir ka tirsan banka ahaa oo la garanaya finance-kii iyo waxyaalaha ka wada shaqeynaya xiriirka ka dhexeeya. waxaan aad ugu kalsoonahay in wax waliba aynu gelayno waqti fiican oo aynu horumar iyo tallaabo dheer qaadi karno insha Allah. aad baan idinku mahadinayaa. ku soo dhawaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.